بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dhammaan idin lahaantiin oo idin salaamaya marka hore magacayga sid inta badan waa dadku ay garanayaan waa Maxamed Xareed codsi ka yimaaday asxaabta inta badan ayaa waxay codsadeen inaan sameeyo phrasal verbs-ka conversationada iyo qaybo kala duwan ee Englishka maalinlaha ama bulshada looga hadlo sidaa awgeed waxaan go'aansaday inaan channel-kan ku bilaabo ama u furo conversation-kii phrasal verb-kii iyo new words-kii ama wixii la halmaalo laakiin channel-ka hore ee Xareed Academy aan u daayo keli grammar-ka kanaalka marka magaciisa waxaa lahaa 101 conversation marka ku soo dhawaada bismillah waxaan ku bilaabayaa dialogue ugu horeeyo dialogue waxaa la yiraahdaa wada hadal ama wada sheekaysi dialogue is another way of saying conversation ama making a talk between two or three conversationka marka inta badan waxaad ogaataa qofka inuu dhex mari karo hal qof kaliya laba iyo inta ka badan 3 4 5 uu gaari karaa waa monologue noqon kara waxaan ku bilaabayaa marka waxa la yiraahdaa formal greetings conversation marka sameynaydo ama inaad barato arabta conversationka waxa laga bilaabaa dhanka salaanta waa in qofku uu barto salaamta qaabka la isu salaamo kadib environmental home everything wixii qaabka loo baahan yahay suuqii isbitaalki dialogue u baahan yahay ama meel walba dialogue ugu baahan yahay si gooni ahaan u galin aad admo laakiin aan ku bilaawno salaanta marka waxay dhex maraysaa 3 qof waa formal greeting formal was greeting-ka caadiga ah formal waxa la yiraahdaa qof adiga ka darajo sareeyo ama aad ixtiraamaydo qaabkaad ula hadleed ayaa la yiraahdaa formal way waaye laakiin hadday tahay 2 qof oo isku daa ama isku level ah ama arday isla waxa waaye informal way kaftami karaan wax yarmaan sameyn karaan laakiin formal markuu yahay kaftanka iyo hadalaha ciyaalka xaafadda uu ka maran yahay waxaan ku bilaabayaa a conversation between Hassan, Professor Mohammed and Sumaya 3 qof u dhex maraya waan arki doonaa Hassan ku bilaabaya hadalka wuxuu la kulmayaa Professor Mohammed asagii Sumaya wada socdo wuxuu leeyahay good morning subax wanaagsan good morning subax wanaagsan Professor Mohammed subax wanaagsan Professor Mohammed how are you doing sidee tahay xaaladda ka waran good morning subax wanaagsan Professor Mohammed how are you doing sidee tahay now professor-ga jawaabayo wuxuu leeyahay good morning subax lamid ama subax wanaagsan Hassan I am doing well and you good morning good morning Hassan I am doing well and you punctuation-ka waa very important punctuation waxa la yiraahdaa meelaha hakadka meelaha joogsiga tusaale kale good morning markuu yiri comma la gelinayaa waa hakad Professor Mohammed comma kale la gelinayaa waa ku hakanaya how are you doing calaamad su'aal u saaraya haddaad ku xiranta kanaalka Xareed Academy inta badan punctuation marks ka si gooni u baran doona grammarka ku dhex baran doona hakadka qaabka loo isticmaalo xilliga la isticmaalo joogsiga full stop-ka calaamad su'aalka exclamation-ka everything good morning Professor Mohammed how are you doing Professor Mohammed wuxuu yiri good morning Hassan I am doing well and you marka formal greetings-ka waxa la yiraahdaa haddii maanta qofku uu ku salaamo salaamu calaykum wa calaykum salaam see tahay waa fiican laguma joojiyo waan fiicanahay adigana see tahay waa formal wax qurux badan waaye laakiin selfish lama noqdo ama qof oo yani oo asaga wax walba isla jecel war see tahay waa fiicanahay maya inaad kaliya isku koobto lama raba adigana see tahay that's why professor-ku uu leeyahay etiquette ka barta etiquette waxa la yiraahdaa anshaxa salaanta anshaxay leedahay wuxuu yiri good morning Hassan I am doing well aniga waan fiicanahay and you adigana iska waran camal Hassan wuxuu yiri I am great waan wanaagsanahay waan wacanahay thank you mahadsanid qofka hadduu marka ku salaamo oo seeta adiga ku yiraahdo waan fiicanahay mahadsanid seeta adiga ana waan fiicanahay mahadsanta inuu ku yiraahdo la rabaa Hassan marka wuxuu yiri I am great thank you waan wanaagsanahay waan sareeyaa caada samaraya thank you mahadsantahay this is my friend Sumaya tani waa saaxiibaday Sumaya already marka meesha waxaad arkaysaa conversation-ka Hassan iyo professor-ku is garanayaan 2 qof oo is yaqaanay ahayn laakiin meesha waxaa ku soo darsamay oo introduction loo sameeynaya ama la barayaa gabadha la yiraahdo Sumaya wuxuu yiri I am great thank you
This is my friend Sumaya. Tani waa saaxiibaday Sumaya. She is thinking about waxa ay ku rajaynaysaa ama ku rajaweyntaa ama ay ka fikiraysay about inay applying application ama codsi u samayso to this college-ka. So meesha maxaa nooga baxay professorka inuu college-kaas macallin ka yahay. So wuxuu yidhi this is my friend Sumaya. Tani waa saaxiibaday Sumaya. She is thinking about waxa ay ka fikiraysay ama ay ku hanweynta ama ay ku rajaweyntaa ama ay rajaynaysaa applying to this college inay college-kan arji soo dhigata ama ay codsi usoo samaysato. She has a few questions. waxay qabtaa ama waxay wadataa su'aalo kooban. Few. She ayada has waxay wadataa a few questions. su'aalo kooban oo fara ku tiraysa 1 2 3. marka wuxuu yidhi would you mind telling us about the process please? Would you mind ma naga yeeleeduu yidhi ama ma noo fududayn lahayd inaad noo sheegto processka ama qaabka loo maro. Please fadlan u raaci fadlan. ninka waa professor haddii aad tiraho ma noo sheegta qaabka meesha ay u kala socdaan waxaa ka qurux badan etiquette-ka inay tahay formal ama anshaxa formalka ah aad adeegsanayso qofkan waa qofka darajo sarreeya. marka wuxuu yidhi will you mind telling us about the process please? ma naga xumaanaysaa yidhi ama mana siin kartaa fursadda in aad wax nooga sheegto processka ama qaabka loo maro fadlan. waxaa intee waaye waa college-ka qaabka application-ka loo soo siinayo. micnaheeda xasan college-kan ma dhigto mana soo marin laakiin professorkan ay is yaqaanaan. hadday yani uu soo mari lahaa college-kan wax wuu ka ogaan lahaa processka wuuna fududayn karaa. then professor Maxamed wuxuu yidhi marka hello Sumaya. Sumaya hay ii waran waaye wuu soo dhaweynaya dhanka kale u jeestay xasan wuu ka soo jeestay Sumaya ku jeestay. wuxuu yidhi it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. waxay ii tahay maanta fursad in aan kula kulmo. I am more than happy to speak with you. waxa aan ahay mid aad intii laga rabay in dhaafsan ugu faraxsan in maanta aan kula kulmo. Please stop by my office next week. fadlan igu soo booquu yidhi xafiiskayga isbuuca damba. Please stop by my office next week. Sumaya waxay tiri it's a pleasure to meet you professor. waxay ii tahay mahad gooni ama fursad gooni ah in aan kula kulmo professore. Thank you so much for helping us. waad ku mahadsan tahay aad ugu mahadsan tahay caawinaadda aadna caawisay. professorka wuxuu yidhi don't mention it. yani waxaan idin qabtay ma laha camal yani waxaas wax weyn maaha oo kale. hopefully saan rajaynayo I will be able to answer your questions. waxaan saan rajaynayo wuxuu yidhi I will be able waxaan noqon doonaa mid ka jawaabay baahiyahaada ama su'aalaha aad qabto. fadlan haddaad ka heshay conversationka like saar si uu u gaaro asxaab badan channelka. subscribe saar comment ka bixi oo afkaartaada ama wax ra'yigaaga tali tusaale nogula soo wadaag. waa mahadsantahay. asalaamu calaykum.